geeyibaad u leedahay guusha waad u dhalatay malaga gaxaysid garbahaaga taaganahay waxaan annagu laabta iyo garbahaaga iyo waxa weey gadaashaadaba waanu taaganahay xildhibaan maxamed abiib waxaan leeyahay keep going sharciyad baad u haysataa saylac waa magaalo qoomiyadda Gadabuursi oo dhan kay dhabarka iyo ku jira iyo waxa weey ka dhalan doona iyo kuwii awooyaashii ahaa ee soo difaacay ee Portugiis ka difaacay ee Ingiriis ka difaacay ay ilaashan doonaan waxaad ka jawaabi doontaa natiijada iyo cawaaqib xumada ka dhalata haddii sharciyadu ay ku qaban weydo oo constitutionku uu ku qaban waayo dalka iyo waxaan wada qoranay ay idin qaban waayaan waxay noqonaa marka laba beelood oo siman bay noqon dawlad inta ay deegaan iska timaado iskama qabsan karto mana qaadan karto aqliga saliimka iyo fakarka saliimka inuu idin shaqeeyo ayaa muhiim ah bismillah الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين أما بعد وحنا هالكن أنو كهذا الدونا دور قضب مهمة أولي aad u muhiima in looga fiirsado anigoo sumad raacaya qodobka dastuuriga 12 kaasoo ii ogolaanaya inaan aragtidayda ku cabiri karo qoraal muuqaal iyo intaba iyo suugan sidoo kale waxa dhawaan soo noqonaysay hadal haynta maalgashiga dekada Saylac taasoo xildhibaanka aqalka sare maskaxda iyo miisaanka aqalka sare xildhibaan maxamed abiib wanin fari akademiga smartia constitutionka iyo sharciyada aad ugu xeel dheer kana soo jeeda hooyga aqoonta waxbarashada gobolka Awdal lagana soo doortay magaalada Ruqi isla markaasina xaq u leh matalaada beelaha uu ka soo jeedo maqoomiyada Samaroon Saciid ama Gadabuursi sida u taqaanaan maxamed xildhibaan maxamed abiib maskaxda iyo عقلي قرشة ميزان كسره قولها سره عقل كبرلمان كشرعي دجنتا وحكومة كوهلية لبية طبعا حلبان وكمد بيلها Gadabuursi أرجو ما أقارن يجو مربط با محاكم دعي ما هضلان بيا محاكم تنشقدوا محيطه يسمى مثلا هذي أنا إني مثل كرين وحلينا هاي كانتين دي واقبتين waxaana tusteen in masiirka ummadda beelaha gobolka Awdal aydan matali karin aydan xitaa garab istaagi karin kiina saxsan halkan aan ku muujin doonaa waxa xaq u leh horta maalgashi marka la dhaho hadalla dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaasoo isagu sheegay in uu rabo inuu helo heshiis dikadeed inuu helo bad kama dhigna macnaheedu inuu carabaabay dikada Saylac inta lug haya iyo ta wax weey ceel sheekh iyo ta wax weey maame iyo xanjiinle iyo bloqoxle gobolka Awdal waa gobolka ugu khayraadka badan leh dhamaan geeyiga Soomaalidu ay degto wuxuu ku noqday waxa uu ku noqday wada gobolka the longest coastal plains haysta xeebaha ugu dhaadheer sidaas darteed waxa masiirkeeda jaangoynaya arintaasina ka hadli kara cida ay khusayso maxamed abiib mar labaad iyo mar saddexaad waxa uu tala jeedin ka jeediyay xarunta baarlamaanka horteeda isagoo leh fursadaasi madaxweynuhu ka faa'iideeyay idmiinis waxa ka dhigan tahay ha hawl galaan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maalgashiga ha hawl galaan oo wax weey hadii heshiis la galayo waxa jira international treaty wax la raado oo waxa weey heshiisyada caalamiga ah dawlad inta ay deegaan iska timaado iskama qabsan karto mana qaadan karto aqliga saliimka يا فكر كسليم كا إنه ذي شقية أي مهمة وحصوب ضنيصة محمد أبيب ضد عن حق الله هين إنه يوتشوابان وأنا يجوا هين وسير كي مالقشية أنا هين وسير كي أرميها الدبدة
أنا هي وحويا ضد يجو كتعلقة علمية يوحويا قرشة الدير أنت مضل سوي استيجان أكوها الله لغة عيال السوقين الله سمايو وحلو يقانا لغة قلاد character assassination الله حتى لقارو إنه هنشبو محمد أبيب ولا هنددو واي وحكلون دول استاجدون هذه ربيدنا كده ليه هاي سيلع مجال تاريخي جاء الزيلع قرما أي أساسنتي قرما أي سبب لابنتي وحي سيلع شرتي كنا أفر بقول أفر يا فرتن سنة كهر نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أنت أنا اللي قصوا دتشنا آية القرآن كايد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر أن تطيعوا الله ورسوله وحاصمضوه مسجد كي قبلتين كهابا كويا الله أنا دقنادت كذا برسيها قومية بدقنيد وحيس جدا بيبقى قرطويين فرابضان والله دقالمي إن ريت دقامة يدير كودي فوسكو دقامة إفادين باير وحوي قومية دي كذا برسي وحكدا بي أضلين باير وإمام أحمد قري الغزالي وكسو كذا بيش أبرين أما عثمان موسى صوت غنان وكرد دقالمي وحنا كلا وريجي إمام أمير نور وكسو كذا بيلا هري نور قل سلقي سنة وها هرار مركي تنبه وها in 1980 slave trade كبالكي لقى سميني حقا بلان كفتمه dadkan gada bursiga waxa ku dhacay baan sir عقوبadii nafsiyeedii ay galiyeen saylaco magaaladii xaajiyada xaajidiidi xaaji qeyr xaaji kool xaaji kaamil magaaladii ugaasida oo magaalo qadiimiye aasaarteedii iyo waxay galin la wada yaqaan saylac daba taariikhdeedii intaana kama goyon karno waxaan ku diyaarin doonaa documentary buuxa oo dhawaan insha Allah aan soo gudbin doono waxa laakiin aan tooso u gudageli doonaa heshiiskii lala galay 11kii bishii 12aad 1984 the Great British hargaha laga saxay iyo luqadii lagu saxay iyo ragii saxay huwa arday kuma ayay haayeen waxa weeyaan ugaas cilmi warfa hadii rabida keedleeyay waa ugaas kiisa maroon ama qoomiyada gada bursi jaamac rooble maxamed cali bulul sidoo kale raage sidoo kale waxa weeyaan iyadna waxa waa bari iidle sidoo kale ducaale dubad iyo sidoo kale waxa ku xusan geel shirwac sidoo kale waxa ku xusan yoonis buux sidoo kale waxa ku xusan hadii rabida keeda leeyahay taariikhaha soo dhigaya taariikhan naajix hijratu ula lil habash wa hijratu thani lil habash waxa yimid Jaafar bin Abi Talib hogaaminayay wuxuu ka soo degaysayna ragii saxaabada martii sooray ee nimankada bursiga ahaayeen waa magaalada aan ku dhaadanay anigu jughraafikaal maan dooran waa mandaqad Ilaahay ii dooray mana ku qabsan karo cid aan aniga waxa weeyaan deegaan aan lahayn kuma qabsan karo balse hadii ay timaado in character assassination loo sameeyo xildhibaan maxamed abi oo la yiraahdo Itoobiya buu wadanka Kenya hikaan isagu ma aha wasiirkii maalgashiga warku biyacba wasiirkii maalgashiga isagu ma aha wasiirka arrimaha dibadda ma aha wasiirka qorsheynta ma aha bal wasiirka difaaca ma aha wa ina dib isugu noqotaan waxaan arkaynaa in qadan maxay tiktoker ra'yi askari oog buu fadhiyaa leeyahay ay ku hadlayeen luqad qadhaadh oo ay leeyihiin buuram waxa noqon doontaa goojaade marka maxamed xildhibaan maxamed abiib au hanjabaysaan ay u handadaanaysaan aad u hanjabaysaan sharcigu idinka idin ma qabta miya beesha dhexe waxaan leeyahay isku noqda isa saxa waxa weeyaan haddaad is saxi weydaan waxa weeye wala idin loo waalan doonaa hadii rabbidankeeda leeyahay waayo maxaa sidaa u leeyahay waxa uu leeyahay waa ilaahay baa jideeyay oo aayad quraana
waan soo halqabsanayo ninkii beeninayana waa beeninaya wala in caaqabtu fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi qofku hadii uu xumaano ku ilaahdo dhigeed bimisli dhigeedu badaronaysa umaana niman halkan inaan ku ujeefayno beela gaara iyo waxa weeye laakiin waxaan u hadlaynaa qaab systematic ninka indhaha faraha ka gelin kara xildhibaan maxamed abiib kala soo bixi karo ninka maxamed abiib u hanjabi karo ninka maxamed abiib xagtin gaarsiin karo ninka maxamed abiib suurad xumayn karo bal samee waxa aad sameyn karto bal samee waxa aad sameyn karto waxaanad ka jawaabi doontaa natiijada iyo cawaaqib xumada ka dhalata haddii sharciyadu ay ku qaban weydo oo constitutionku uu ku qaban waayo dalka iyo waxaan wada qoranay ay idin qaban waayaan hadday idin qaban waayaan waxa weeyaan dee waxay noqonaysaa marka laba beelood oo siman bay noqonaysaa laba beelood oo siman bay markaa noqonaysaa dad sharciyada iyo dastuurka adlaashan maxamed abiib wuxuu ka soo jeedaa ma ahan mid idinka mid ah gobolka awdal buu ka soo jeedaa wanin habar cafaana wanin waxa weeye jibriil siciida waxa weeye wanin dilandheere ilaahay ka taxadiray waxa weeye sidaas darteed wana senator waa xildhibaan xasaanad leh in maalin walba miidiyaha aad la soo fadhiisataan caydiisa jeefadiisa halkaana waxa dhigay waa dulqaadkiisa bal ka warrama haddaan reer sheekhow ma beesha dawladda dhaxay nimanka beesha dhaxay aan idin soo diri lahay boqol maxamed abiiba saxaalkiinu sidoo noqon lahaa bal sida xaalkiinu noqon lahaa ayaynu isweydiinaynaa waxaan kaga baxayaa hadalkayga guusha waad u dhalateen qowmiyadda Gadabursi waxa la leeyahay guusha waad u dhalateen mana gaagaxaysaan geeyibaad u leedihiin garasho dheer iyo waxa weeye garaadan guurin baad leedihiin halkani waa halkii lagu aasaasay nidaamka dawladnimada gundhiga u ahayd saldhigga u ahayd gobolka awdal waxa weeye ku sutan yahay dawladnimadaba saddexda principal ee saddexda tiir ee dawlad ku noqoto waa calanka waxa lagu sameeyay gobolka awdal muraad cabdalla baa sameeyay oo reer awdala waxa constitutionka qoray dastuurka waxa weeye raximahullah raxmatan wasi'a ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye sheekh muuse jaamac guudaad oo ka soo jeeda beelaha Gadabursi sidoo kale waxa haysta qaranka ku laday raximahullah raxmatan wasi'a ilaahay oo naxariisto abwaan xasan sheekh muumin abwaankii ummadda Soomaaliyeed sidan waxaan anigu baaqayga ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa geeyibaad u leedahay guusha waad u dhalatay mana gaagaxaysid garbahaaga taaganahay waxaan anagu laabta iyo garbahaaga iyo waxa weeye waa gadaashaadaba waanu taaganahay xildhibaan maxamed abiib waxaan leeyahay keep going sharciyad baad u haysataa waxa weeye wadna matashaa waxa tahay the voice of voiceless dadka aan hadalkoodu meel dheer gaari karin ka gaarsiinaya baa tahay waa shaqadaadii waa dhigidskaagii waa waajibaadku saaran weey ma aha inaad cid uga habrato maalgashiga dekada Seylacna cid loo daba fadhiisanaya ma jirto cid loo daba fadhiisanaya ma jirto oo waxa weeye qoomiyadda Gadabursi aan ka ahayn way ilaahay uu ku beeray juqraafi ahaan dajiyay waa mandaqada ku nool yihiin waa isha kaliya waa source-yada waa taariikhdayada wax weey waa halka aan ku biastaadina waa magaalo ku suntan in xitaa taariikhana jaxay qorayaan sida ibn Kasiir oo kale taariikh al-umam oo ka qoray in xataa nabiyullah Idris alayhi salaam oo ku aasayay magaalada Saylac markaas sida waxaan leeyahay Saylac waa magaalo qoomiyadda Gadabursi oo dhan kay dhabarkay ku jira iyo waxa weey ka dhalan doona iyo kuwii awiyaashi ahaa ee soo difaacay ee Portugiis ka difaacay ee Ingiriis ka difaacay ay ilaashan doonaan waa meel indhaha aan ku wada hayno hamoodina in aanu ka gaabsanay ama aanu seexanay ama dayacantay Saylaci wad selashay magaca Selal markii uu baxay bay selashay magacaasina waa ka bedeli doonaa Saylacadeedii bay noqonaysaa makaankii loo yaqaanay ee laga yaqaanay Gujaraati waxaan halkan ku hayaa
baasaboorkii Adal Empire in 1984 lagaga dhoofi jiray kaasoo soo bandhigi doona hadii rabida keeda leeyahay waxa ka baxaya hadalkayga wiilasheera meelaha ka qalqaliyo ma naan garan waayay inaan afxumo meelaha la soo fadhiisano laakiin sharciyada iyo nidaamka raaca hadaydan raacin daway jiraan kuwa walwaalan oo diidin jawaabi karo dhigiina levelkiina waliba idinka afxuno sidee doonaan u hadli kara